السلام عليكم سودو هذا صاحبيال موضوع مقال كان waxaan si daahfuran uga hadli doonaa sida aad lacag uga sameyn karto online-ka adigoon haysan wax lacag ah su'aashan waxa ay soo weydiiyay asxaab badan oo ku xiran boggeena sidaas darteed waxaan rabaa muuqaalo dhowr ah aan kaga hadlo wadiiqadaha lacag looga sameyn karo online-ka adigoon lacag haysan xitaa $0 haddii aad talaabadan raacdo waxaan boqolkiiba boqol hubaa inaad lacag kaga samayn karto online-ka kana tirmi doonto fikradihii qaldanay aad ka aaminsanayd sida lacag looga samayn karo online-ka sida ay ku soo celceliyaan dhalinyaro badan ayaa ka sheeganaya inay aad iyo aad ay ugu niyad jabeen lacag ka samaynta online-ka sidaasi darteed waxaan idin ballan qaadayaa inaan koorsooyin itusi oo itaabsi ah ka soo diyaarin doono sida lacag looga sameeyo online-ka weliba koorsooyinkaasi waxaan soo gelin doonaa isla janalkeena muuqaalkani wuxuu bilow u yahay koorsooyin muhiim ah oo aan idinku soo gudbin doono ugu horrayn waxaad u baahan tahay inaad soo samaysato trust wallet ama 1xbet ID account cusub midkood waxaa iga digniin ah ID-ga cusub ee aad samaysay inaadan lacag ku shubanin waanad ku ciyaarin geemiska meel ku qoro oo xafido waa meesha aad lacagta kala bixi doontid haddii alla weyn uu oggolaado waxaan doonaynaa inaan lacag ka samayno online-ka anigoon wax lacag haysan waxaan soo dooranay shirkadda 1xbet qaybteeda affiliate-ka haddaad maqasho affiliate waa habka ugu sahlan uguna bisil ee lacag looga samayn karo online-ka sidaasi darteed muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa qaybta affiliate marketingka sida lacag looga samayn karo sidaan u bilowno inaan samayno akoonka 1xbet affiliate marketingga waxaan isla aadi doonaa mid ka mid ah bariisarada ku jira mobilkaaga mid ka mid ah bariisarada kugu jira ayaad tegaysaa nooci doonaba ha noqdee annaga hadda waxaan aadi doonaa chromeka ayaan aadi doonaa markaan ku dhufano halka sare ayaa waxaan ku qori doonaa 1xpartner.com waxaan ku qori doonaa 1xpartners.com ayaan ku qori doonaa waxaad noo qorayso sidaa kor ama halkaan uu kaaga muuqdo ayaad ku qoraysaa 1xpartners.com intaas markaad qorto ka bacdi waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay register intaanan u gudbin registrationka ama diiwaangelinka waxaan rabaa inaan wajahaddan hore aan wax idinkaga sheego website-kan 3 tallaabo ayaad lacag kaga samayn kartaa tallaabada koowaad inaad is diiwaangeliso tallaabada labaad in markaasi aad u bandhigto bromokoodyadaada bromokootkaaga inaad dadka aad u bandhigto aad hayeysi inaad ka samayso tallaabada saddexaadna waxaad helaysaa ayaa lagu yidhi 40% oo commissiona sidoo kale haddii aan hoos u soo degino regular payoutkiisa waa weekly waa isbuucle toddobaad walba ayaad lacagtaada aad la bixi kartaa haddii ayba gaarto minimum payoutkiisa oo ah $30 arrinta labaad waa high commission aad u sareeya ayay bixiyaan waa 40% commissionka ayaga ay bixiyaan niyadeeda kale waa excellent support taageeradoodna aad ayay u sareysaa waa sax midda iyada ah been kuma sheegin midda kale waxaa la yidhi 20,000 oo partner ayay markaas ay ku diiwaan gashan yihiin all over the world dhammaan caalamka oo dhan ay kala yimaadeen 700,000 oo qofood ayaa isticmaasha maalintii 40 oo booqdayaal ah 49 luqadood ayaa markaas taageera mideeda kale 160 payment solution ayuu leeyahay markii aad rabto sidoo kale haddii aan hoos u degano halkan waxaa kaaga cad $944 ayay bixiyaan ama ayay affiliate partnerkeena ay ka helaan bishii waa dadka affiliate-ka ka ah haddii si aad isugu diiwaangeliso ugu horreyn waxaad tegaysaa registration meesha ay ku qoran tahay sidaan hore u soo sheegnayna intaadan registrationka bilaabin waxaad soo samaysanaysaa ID 1xbet ID cusub ayaad soo samaysanaysaa oo aadan weligaaga game ku ciyaarin ama aadan lacag ku shubanin markaad soo samaysato ay ama diyaar ku tahay haddii oo arrintaas ay dhibaato ay
waxaad soo samaysan kartaa trust wallet kadibna taroonka ama bitcoins ayaad kala bixi kartaa lacagahaaga si isbuulo ah ayadaasi automatic ay kugu diri doonaan marka qaybtan ayaan ku dhufanaynaa registration ay ku qoran tahay registration markaan aan ku dhufano halkaas koowaad waxaad gelinaysaa username ayaad gelinaysaa oo ah magac gaaban oo aad mali maxsuusan kartid tusaale ahaan cabdi 45 oo kale ama ali 40 wax noocaas ayaad gelin doontaa halka ay ku qoran tahay passwordna waxaad gelinaysaa passwordkaaga halka labaadna waxaad ku celinaysaa isla passwordka ku celinaysaa halkan waxaad gelinaysaa magaca website ayaad gelinaysaa website dalal website-ka tarabtid geli haddii aadan website lahayn haddaa website kale iska gasho waa optional halkan kale oo ka hooseeyana waxaad sports prediction sidiisa uga tag oo wax kale ka sii dooraninba halkan ay luqadda ayaad ka dooranaysaa luqadda aad fahmi karto ayaad ka dooranaysaa halkan ayaad imaanaysaa carabkaas yar oo drop downka markaad ku dhufatay kadibna waxaad arkaysaa luqado badan German, Russia, Mongolian, Polish, Bulgarian, Swedish, Romanian, Czech, French, Arabic, Italian, Spanish luqadahan oo dhan luqadda aad doonto ayaad ka dooranaysaa intaas waa isla fahanay luqadii markaad doorato ka baadi halkan advertising ha ku ahaato oo halkan ay ku qoran tahay halkii ayaad ka aragtay affiliate partnerkeena advertising ku ahaato advertising watan halka ay ku qoran tahay first name magaca koowaad halka ay ku qoran tahay first name halka ay ku qoran tahay magacaaga koowaad aad gelinaysaa halkan waxaad gelinaysaa naanaystaada halkan waxaad gelinaysaa emailkaaga sidoo kale halkan waxaad ka dooranaysaa messenger ama telegram waxaad leedahay ka dooro halkan telegram userkaaga geli arabka as ayaad ku dhufanaysaa oo drop downka markaad ku dhufato adiga ayaa dooran karo skb telegram iyo waxyaabaha iyo messenger iyo la mid ah halkan waxaad gelinaysaa telegram userkaaga ama haddii aad skb dooratayna skb userkaaga ayaad gelinaysaa halkan waxaad ka dooranaysaa wadankaaga Soomaali iska dooro way ogol yihiin Soomaali aniga kayga Soomaali ayaan samaystay caadi ayaan igu shaqeeyaa halkan waxaad gelinaysaa lambarka aad wadato aad gelinaysaa Somtel Golis ma garanaysaa Samphone Hormuud waxaad doonto geli iyo Somtel waxay doontaba iyo Somnet halkan waxaad ka dooranaysaa Netler ayaa hadda ku dooran halkan carabka ay ku sawiran tahay ayaad tagaysaa markaad tagtid ka baadi waad ku dhufanaysaa markaad ku dhufato waxaan kula talinayaa halkan inaad ka doorato player account waayo marka hore waxaan kugu yiri account soo samayso aad weligaa ku ciyaarin halkan player account ayaad dooranaysaa player account markaad doorato halkan waxaad gelinaysaa ID OneXBet aad soo samaysatay ayaad gelinaysaa ID-gaas waa tiradaas ayaad gelinaysaa ID-gaaga ayaad gelinaysaa markaad geliso halkaas ayaad tig saaraysaa markaad tig saartid kadibna halkan ayaad ku dhufanaysaa register ay ku qoran tahay intaas ayaad maraysaa wadadaas ayaad maraysaa markaad rabto inaad isdiiwaan geliso waxaan rajaynayaa intaas inaan isla fahanay haddaba markaad isdiiwaan geliso ka bacdi oo aad imaado wajahada hore waxaad ku dhufanaysaa si aan akoonkeena u furno halkaas ay ku qoran tahay falaarta ama halkaas falaarta ay ku sawiran tahay ayaad ku dhufanaysaa kadibna halkan hore username ay ku qoran tahay waxaad gelinaysaa usernamekii gaabnaa ayaad soo samaysatay halkan waxaad gelinaysaa passwordkaagii kadibna waxaad ku dhufanaysaa sign in markii sign in aad ku dhufato wuxuu ku weydiin doonaa xoogaa yar su'aal yar oo sawir aad ugu gudbayso oo robot checking ah ayay ku weydiin doonaan aniga hadda waxaan rabnaa inaan gelino OneX partnerkeenii hore inaan gelino ayaan rabnaa si aan idinku soo qaabkaad ugu shaqaysan kartid kan geliyo okay ayaan dhahayaa okay markaan dhaho adiga marka hore meelahan oo dhan oo hadda lacagaha ayay igu qoran tahay adiga ewer ayay ku tahay halkan waxay ku tahay 0 halkan 0 ay ku tahay halkan 0 ay ku tahay halkan 0 ay ku tahay halkan 0 dhammaan waa wada 0 ay ku tahay oo wax lacagaha kuma soo qori doonaan halkan sidaas darteed si aad shaqada u bilowdo weyn waxaad samaysanaysaa brown code si aad brown code u samaysato halkaas saddexdaas xariijin ayaad tegaysaa oo dhankaaga midigta
markaad ku dhufato saddexda xariijimood waxaad ka sii dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay promo codes halkaas ayaad ku dhufanaysaa markaad ku dhufato promo codes halkan waxaad ka dooranaysaa lacagta aad rabtid USD ka dooro mar waliba drop downkaas ayaa laga doortaa lacagta haddii aad euro waxaas rabtidna waad ka dooran kartaa sidoo kale halkan direct link inuu ahaado wadda direct linka ku ahaado direct link wadda haddii rabtidna qaab kale waad u dooran kartaa wax 100 USD iyo 100 ABK anaga marna waxaan rabnaa oo keliya direct link adigana waxaan kula talinayaa in direct link aad lacag kaga samayso kadib waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay generate promo code markaad ku dhufato waxaa hoostan kuu soo bixi doona ID oo qaabkan oo qoran ayaa kuu soo bixi doona iyo calaamadaas balaasta ayaad ku dhufanaysaa markaad ku dhufatid ka bacdi waxaad arkaysaa in promo codekaaga uu yahay 1x xariijinta hoose 10.15.9 promo codekayga ama promo codeka hadda aad samaysatay qaabkan ayuu kugu soo bixi doonaa 1x ayuu ku bilaabanayaa kadibna qaabkan ayuu soo qorni doonaa promo codekan ayaan kuubi dhigaynaa si aad kuubi u dhacdo waad haynaysaa oo keliya kadibna waxaad leedahay kuubi halkaad qoranta ayaad taabanaysaa promo codekaas ayaad kuubi oranaysaa markaad kuubi dhacdid kadib promo codekan ayaad isticmaalaysaa qof walba aad rabtid inaad u samayso 1xbet account ama 1xbet ID tusaale ahaan haddii adiga laftirkaaga 1xbet ciyaarayso ID-gaaga promo codekaaga ayaad ka samaysanaysaa 1xbet ID haddaba qaabka loo sameeyo ayaan idin tusi doonaa halkan waa ka bixi doonaa oo waxaan aadi doonaa applicationka 1xbet ayaan isla aadi doonaa oo waxaan idin tusi doonaa sida loo adeegsado promo codeka ama sida loogu sameeyo ID qofka tusaale ahaan haddii xaafadiinu ay 5 qofood ama 6 qofood aad ka hesho oo 1xbet ciyaarta oo promo codekaaga aad ugu samayso intaas kugu filanba waxaad ka samayn kartaa waadna arki doontaa haddii alla idmo applicationka ama 1xbet ayaan isaga imaanay kadib waxaad ku dhufanaysaa halkaay registration halkaas waad u jeedaa registration ayaad ku dhufanaysaa markaad taabato registration waxaad kasii dooranaysaa halka ay ku qoran tahay in 1 click waa habka ugu sahlan in 1 click markaad ku dhufato kadib halkan wadanka aad ka dooranaysaa halkan waxaad ka dooranaysaa lacagta dollarka aad dooranaysaa oo USD-ga ah markaad doorato halkan waxaad kasii dooranaysaa sports and casino accept ayaad leedahay markaas kadib halkan waxaad gelinaysaa promo codekii aad soo kuubiyeysatay ayaad baastaad ku dhigaysaa haddii aad rabto inaad aad u qortana waan idin tusi doonaa oo inta kale waa qori kartaa laakiin xariijintaas waa xariijinta hoose xariijintaas iska ilaali oo keliya xariijintaas haddaan idin tuso waa xariijintan hoose halkan ayaad taabanaysaa oo ABC ay qoran tahay xariijinta waa midaan waa ujeedaa oo lehda ku hooseyso midaas ayaad dooranaysaa qaabkaas ayaad u qoranaysaa kadib hoose ayaad usoo deganaysaa saddexdan meelood ayaad tig saari doontaa saddexdan meelood markaad tig saarto kadib halkan saxda ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa halkan saxda ay ku qoran tahay markaad ku dhufato kadib qaabkan ayuu soo bixi doonaa oo screenshot ayaad ka qaadanaysaa qof walba u yaqaana arrintan qof loo sheegaya ma jirto laakiin dulmar aydan ahaato oo screenshot markaad ka qaadato kadibna akoonkaaga ama ID-gaaga aad ka samaysay promo codekaaga ayaad qof walba ama ID-ga promo codekaaga ayaad ugu samaynaysaa qof walba adigana midkaad isticmaalayso promo codekaaga ayaad ku samaysanaysaa sidaas ayaad markaas aad ugu faa'iidi kartaa marka waa sidaas qaabkaas ayaadna samaynaysaa intaas waan rajaynaya inaan isla fahanay arrinta kale oo aan rabo inaan idin tuso ayaa waxay tahay marka aad rabto inaad lacagta aad la baxdo lacagta waxaad la bixi kartaa markay gaadho minimum withdrawal oo ah $30 lacagta markii $30 ay gaarto waad la bixi kartaa tusaalahaan markaad rabtid lacagta inaad la baxdo lacagta la bixis uma baahno oo iyada ayaa si automatic ah
ayaga ay si automatic ay kugu diri doonaan haddii lacagta ay gaarto $30 halkan ayay imaanaysaa oo ku qoran available to withdraw. haddii $30 lacagtaada ay gaadho ama wax ka badan ay gaadho halkaas ayay imaanaysaa lacagta halkaas waxay kusoo darayaan maalinta isniinta gelinka dambe ilaa iyo talaadada. maalinta isniinta ilaa talaadada gelinka hore ka bacdi maalinta talaadada oo dhan lacagtaada waa suganaysaa halkaas ay on hold ay ku ahaanaysaa halkaas ay ku jiri doontaa. kadibna lacagtaada markii halkaas inay zero tahay ay ogaato waxaad tegaysaa ama waxaad kicinaysaa ID-gii cusbaa ee marka hore aan ku dhahay samayso oo aad ku xiratay. haddii oo Trust Wallet ay kugu xirneed Tron iyo Bitcoin ay kugu xirneedna Trust Wallet-kaaga ayaad tegaysaa. Trust Wallet-kaaga ayaa si automatic ah ay kugu diri doonaan. intaas waa rajaynaa inaan isla fahnay. haddaba halkii ayaan ka ogaanayaa lacagta la ii diray iyo cadadkeeda iyo intay la eg tahay si aan u ogaado in lacagtii la bixiyey oo ay akoonkayga tagtay iyo in kale. waxaan isla tegi doonaa waxaad tegaysaa 3daas dhibcood ama 3daas xariijimood oo kore ayaad tegi doontaa. markaad tagtay ka bacdi waxaad kasii tegi doontaa meel ay ku qoran tahay payment history. halkaas ayaad tegi doontaa payment history si aad u ogaato lacagaha lagu diray iyo waqtiyada la diray iyo in la bixiyey in kale. kadib waxaad halkan aad ka dooranaysaa exact period. exact period markaad doorato ama waxaad kaloo dooran kartaa current month ayaad dooran kartaa. current month markaad doorato ama current year ayaad dooranaysaa ama current month. current month waxaa laga wadaa haddii bishaas lacagaha aad samaysay ayaad ku ogaanaysaa. current yearna waxaa laga wadaa sanadkaas lacagaha aad samaysay oo lagu diray ayaad ka ogaan kartaa. tusaalahaan hadda haddii aan ku dhigto current year waxaad arkaysaa lacagaha aan ka sameeyey. current year aan taabtay oo ah sanadkan oo hadda sii bilowday. kadib waxaad taabanaysaa generate report ayaad taabanaysaa. sidaad arkaysaan wax report ah halkan kuguma caddo laakiin xaggee taabanaysaa halkan ayaad taabanaysaa ay ku qoran tahay payment history. halkan ayaad taabanaysaa payment history. markaad taabato sidaad arkaysaan lacagaha waa kuwaan. lacagahan hadda ma aha lacag la ii diray laakiin waa lacag available ii ahaa laakiin cadadkii loogu talagalay aysan gaadhin. si aad faahfaahinta u ogaato halkaas balaasta ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa. balaas markaad ku dhufato halkan waxaad arkaysaa page meeshay ku qoran tahay horteeda ayay soo qorayaan lacagta la bixiyey haddii lacagtaas ay imaaday. lacagtan hadda waa lama bixin on hold ayay ku jirtaa. payment date ayaa meeshan kugu qoran payment date oo ah waqtiga la bixiyey. haddii lacagta la bixinin waxay ku soo qori doonaan 00. lacagtan hadda ma ahan lacagtan $58.57 lamana bixinin. 7 bisha koowaad ayaa carry over laga dhigay oo ayaa hoos loo wareejiyey. 7 bishan January 2024 ayaa markaas carry over la dhigay lamana wareejinin. lacagahan oo dhan xadkii looga talgalay oo $30 ma gaarin waa la wada wareejiyey oo keliya. intaas waan rajaynayaa inaan isla fahnay. waxaan idin tusi doonaa lacagihii hore aan uga baxsaday ama aan ugala baxay. waxaan dooran doonaa last year sanadka hadda dhammaanayay oo ah 2023. kadib waxaan taabanayaa generate reportkii soo koob ayaan leeyahay. kadib waxaan taabanayaa halkaas payment history ay ku qoran tahay. markaan taabto ka bacdi lacagahan oo dhan aad u jeedaan waa lacago aan ka sameeyey sanadkii hore. qaybtan waxaa kasii dooranaysaa qaybta labaad oo ah qaybtaas labaad ayaad kasii dooranaysaa. lacagahan waad u jeedaa qayb 3 haddii aan ka doorto sidoo kale qaybta hoose markaan ku dhiftay oo balaaska ah bait meesha maxaa ku qoran bait horteeda fiiri lacagta la bixiyey meeqay gaaraysaa waa $334.56. waa lacagaha aan ka sameeyey sanadka dhan ma ahayn aniga waxaan midkaan sameeyey bishii 6 22 maraysa ayaan sameeyey 1x baan periodkan laakiin 2 bilood ugu horeyso waa wax kamaan helin. bishii 3 ay lacagta ii bilaabeen oo ah bishaas 3 ay siiyeen lacag $102 gaaraysay. bisha labaadna waxa isla bishaas gudaheed aan ilaaday waxa siiyeen waa isbuucigay $30.08. isla isbuucaas waxay siiyeen isla bishaas isbuucii ugu dambeeyey
oo bish toddobaad isbuuca ugu dambeeyay waxay siiyeen lacag gaaraysay $35 iyo sentiyaal. marka haddii aad faahfaahin iyo waas aad u baahan tahay intaba waad ka helaysaa oo ah qaabka ay lacagaha u bixiyeen. marka lacagaha iyo qaabka ay u bixiyeen halkan ayaad ka ogaan kartaa. hadda lacagtan $55 iyo 86 senti goorma ayaan la bahay waad arki kartaa taariikh 31 bisha 12 2003 $71 waxaan la bahay iyadana labada bisha koowaad 2024 ayaan la bahay. sanadkan hadda bilowgiis ayaan la bahay $71 iyo 43 senti. marka sidaan ayaad lacag kaga samayn kartaa online-ka adigoon wax lacag ah haysanin, wax lacag aan gelinin, wax lacag aan maalgelin doonin. waxaan rajaynayaa inaad intaasaan isla fahanay. intaynu muuqaalkan mid la mid ah qaybihiisa xiga aynu dib uga kulmi doonaa haddii alla weyn u ogolaado. isma dhaafin. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.